dowlad deegaanka Itoobiya iyo xukuumadda federaalka Itoobiya ayaa Buuhoodle waxay maanta soo gaarsiiyeen gurmad daawo ah iyo waliba shaqaale caafimaad oo heer federaal iyo waliba heer deegaan isugu jira kuwaas oo ka qayb qaadanaya xaaladda adag ee haatan ka taagan magaalada Buuhoodle oo cusbitaalka daryeel ay u jiifaan in ka badan 200 oo qof oo soo ritay cudurka shuban-biyoodka waxaana waftiga ka socday dowlad deegaanka Itoobiya Buuhoodle ku soo dhaweeyay Garaad Cabdirasaaq Qarasoofe Islaan Cismaan Cali waxgaradka Buuhoodle waxaana goraalka ka hadlay Garaad Cabdirasaaq Qarasoofe iyo Islaan Cismaan Cali waxayna si weyn uga mahadceliyeen xukuumadda dowlad deegaanka Itoobiya madaxweynaha ka yahay mudane Cabdi Maxamuud Cumar waxayna sheegeen in daawadan iyo waliba shaqaalahan ay gudoomeen sidoo kale isnaalka waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Doolo Maxamed Cabdi Barro isaga waftiga ka socday dowladda deegaanka Itoobiya hogaaminayay joogna isbitaalka daryeel waxaana soo gaadhay deeq dawo shaqaale 16 iyo raashin ay soo direen dawladda Itoobiya waxa hogaaminayay waftiga noo yimid deeqda waday gudoomiyaha gobolka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa deeqda ay soo gaarsiiyeen dadkan walaalahooda baahan waxaan leenahay dawladda Itoobiya deeqda ay noo keentay qaybo kamid ah ay yihiin kuwii ugu horeeyay sida shaqo tiiman caafimaad oo tiro badan waa ka gudoonay waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa cid kasto oo maartay arintan wax ka geysanaysa aafadan abaarta iyo xanuunka isku darsamay cid kasto wax ka geysan kartana waxaanu leenahay soo gurmada insha Allah taala wixii aad noo wadeen qolo walayba haday raashin tahay haday daawo tahay way ka gudoomaynaa aad baad u mahadsantihiin Cabdi Maxamuud Cumar qoraan mahadnaq u soo jeedinay dadka halkan tuban iyo dadka meesha jiifa waa dadka deegaankiisa hadduu u yimid dadkiisii u yimid waa dadkan Itoobiyaan buu u badan yahay waxa meesha jiifa waxa ku dayacan waa dadkiisii inta uu imika gacanta ku hayana waanu ognahay ilaa wardheer ka sokaysa shinay gobolka Buuhoodle dawadii deeqda ee hada ka timid dowladda federaalka Itoobiya waxaana laga wareegay medical director-ka isbitaalka gobolka Buuhoodle isla maantana shaqadii ayaa lagu bilaabay xirfadlayaashii ay ka yimid deegaanka iyo federaalkana shaqadii iyo hawshii bukaanka ayay bilaabeen shaqo wanaagsan ayana meesha ka socota isla markaana wixii caawinay anaga dhinacayagana ma bilaabayna duulayraado wacyigelin adagna waxaan rabnaa inaan isbitaalka gudihiisa ka sameeyno isla markaana meel walba patient lagu sheegana aan tagno aad baa wanaagsan dhaqaatiirtan waqti soo gaadhimay ay leeyihiin dhaqaatiir waxa yimid halkan 16 xirfadlayaal laba dhakhtar iyo 16 laba dhakhtar iyo 14 neersa shaqadoodina way bilaabayaan okay isku jiraan deeqda halkan soo gaarsiisan waxay isku jiraan systemka wash wixii loo isticmaali lahaa iyo dawooyinkii dadka labada nooc iyo raashinkii dadka ayay isku jiraan saddexdana qalab waxaan wadanaa afarta qaybood ee kala duwan ee laga hortagi karo xanuunka shuban-biyoodka hadday tahay social mobilization hadday tahay wacyigelinta hadday tahay waxaan ku raadayay washtii hadday tahay surveillance teamkii iyo haddii ay tahay supply-ga loo baahnaaba supply-ga haddii aanu galo bukaan walba wuxuu u baahan yahay waan wadana diyaarna waan u lana inaan hadda ka caawino እንግዲህ ወደዚህ መጣ ነው በዚህ በአካባቢው በተከሰተው ድንገተኛ በሆነ በሽታ ያለን አቅም በመጠቀም ወገኖቻችን ህዝቦቻችንን ለማገዝ ነው የመጣ ነው ማለት እዚህ ጋር ስንመጣ ብዙ ነገሮችን ሳክሪፋይ አድርገን የመጣ ነው እዚህ ጋር ያሉ ወገኖቻችን የኛም ወገኖቻችን ናቸው የሚለውን ሴንስ በማድረግ ለማገዝ ነው የመጣ ነው xukuumadda dowlad deegaanka Itoobiya oo madaxweyne u yahay mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa dowlad deegaanka Itoobiya dhinaca xadka waxay ka wadaa olole balaaran oo lagu ciribtirayo cudurka shuban-biyoodka oo lagu hortagayo waxaana deeqdan daawada si weyn u soo dhaweeyay guud ahaanba waxgaradka ee bulshada ku nool deegaanka Buuhoodle وعلى اسمنا سعود لك ورقة الفيش كعلمي اسماعيل نيوز مقالة Buuhoodle